السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخيار شرفت الله بمعلي والبعد كجوكتان waxaan idiin rajaynayaa nabadqab bashbash barwaaqo iyo horumar iyo caafimaad aan la soo koobi karin. Haddaba maanta waxaan idiin hayaa arrin aad iyo aad ay ugu farxi doonaan dad badan marka ay arkaan. Arrinkaasi muxuu yahay? Badanaa dadka bidaar itimiya naga go-ay unba in badan ku wareeraan. Maanta waxaan hayaa xalkii aad ugu taqallisu lahayd dhibaatadan timo la-aanta ah ay ku haysato ee bidaarta ah oo walwal iyo walaac iyo mushkilad kugu abuurtay oo aad ka joogi laadahay. Haddaba saliid waa soo baxday oo natiijadeedna 100% la hubo. Magaceedna waxaa la yiraahdaa New Hair Lotion. Haddaba Canada ayaa lagu sameeyaa, Canada ayay taalaa, balse adduunka haatan waa horumaray. Maalinta kasii dambeysana dunida way isku soo dhawaanaysaa. Waxa isku soo dhaweynayna waxa weeyaan internetkii iyo onlinekii baa isku soo dhaweynaya. Haddaba waxaad ka dalban kartaa meel walba aad dunida ka joogtid, baad computerka inaad soo qaadatid ayaad ka dalban kartaa. Lacagtana kaama orodsiinaysay, waa u soo dhawaanaysaa. waa wax ka yar $40, $38 oo timaha aad ku badbaadinaysid, oo guul iyo bashbash iyo barwaaqo iyo horumar iyo caafimaad aad ku helaysid. Waa saliid waxba aanan kuu dhibeynin, balse timahaaye kuu celinayso, wixii hore kaaga tagina kuu soo celinayso. Bidaar dambe itina halkan ka biibtay, itina halkan ka maqan, mar dambe walwal iyo murug kuguma haynayso. Taasi waa ka jiifanaysaa, farxadeedii waa kuu soo hooyatay. Haddaba saliidan timaha waxba uma dhibayso. Inta badan saliidda waanu marinaa timaha, waana isticmaalnaa. Haddaba daabooyinka iyo wixii lamid in laga baqo waa muhiim, laakiin saliidda waa hubaan natiijo fiican bay leedahay. Qofkii markaasi tijaabiyeyna guushiisi wuu hantay. Haddaba magaceedii waad haysataayo, New Hair Lotion. Haddaba intaad internetka ku qortid ka dalbo, lacag $38 waaye. Timahayana way kuu soo badbaadaysaa. Waa in aad u dulqaadataa. Haddan marsanayaa saacad kadib ha ii soo baxda ma aha. Waxay u baahan tahay dulqaad, tartiib bil, 2 bil, dhowr isbuuciyo kadib natiijadii oo farxad leh oo guul iyo bashbash barwaaqo leh baad helaysaa. Lacagta ma badna, laakiin guusha waa ay badanta. Lacagta ma badna, farxadda way badanta. Lacagta waa ina soo galaysaa, waa inaga baxaysaa, laakiin meeshaan ku bixinayno iyo natiijadeedii mar walba waa inaan ka walwalnaa, waan xoogga saarnaa, aan ku dadaalnaa waxa nafsadeena u wanaagsan. Haddaba saliidan waxaa hubaal ah in timahaaye ay ku ilaalinayso, timahayna ay ku soo celinayso. Canadana ayay ku taalaa shirkadda soo saartay saliidan. waana saliid aad iyo aad u fiican. bidaara ay haysay, bidaara ay ugu soo socotay, bidaar walwalkeeda ay hayo kaba seexo. taasi ka fogaa, murugteeda yaysanba ku haynin wixii hadda ka dambeeya. saliidan gurigaaga soo dhigo oo marso, faa'iido badan baad keenaysaa. aan kugu celiyay mar labaad, magaca saliidda waa New Hair Lotion. waxayna ka heli kartaa onlineka, waxayna taalaa dalka Canada. adduunku waa uu horumaray. dalbo oo ku bilaab timahaaye muddo toddobaadyo ah. markaad ku wado natiijadeedu waad helaysaa. 1 mar ama 2 mar haddaad maalinka mariso ugu fiican. shanlaal la socoto oo timaha lagu shanlaysto ay wadato, taasi aad si fiican ugu shanlaynaysaa. markaad marinayso waxaad arkaysaa natiijada iyo timaha isbedel.
timahana waa ay jincinaysaa, timaha jileec bay ka dhigaysaa, waa in ay soo bixinaysaa, nafaqana way siinaysaa, wayna korinaysaa. New hair lotion ha mogaanin, hana ka maqnaanin baan leeyahay. Natiijadeedna waa natiijo la isku hubo 100% guulo badanna leh. Saad halka ka arki doonto sawiradeedii iyo sida qaabka aad u isticmaali doonto, insha Allah waxaad kala socon doontaa shaashada oo hadda aad ka arkayso. haddaba la soco oo dalbo, insha Allah biidnillah guusheeda waad arki doontaa. intaan barnaamij la mid ah aan ku wada kulmi doonana waxaa idinkaga tegayaa guul, bashbash, barwaaqo, horumar iyo caafimaad qab aan la soo koobi karin. fadlan ha iga iloowin shareka, subscribe-ka, like-ka iyo comment-ka. dhiirgelin bay ii tahay, anna markaasi waxaan ku dadaalayaa inaan waxyaabo muhiim bulshada u ah, waxtar u leh inaan ku dadaalo, mar walba aan raadiyo keenana wax natiijadeed la arkay oo bulshada wax kusoo kordhin karo, waxna u tari karo. intaan mid ka mid la wada ku doona khayr, bashbash, barwaaqo iyo caafimaad. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.